tusaalooyin yaryar baan soo qaadanayaa oo ah gabadha Soomaalida inay tahay qofka ugu sareeya ee Soomaaliga ama qiimo ahaan halka bulshada Soomaaliyeed ay gabadhu ka joogto midda koowaad waxa weeyaan aan soo qaadanayo dhaqanka Soomaalida waxa ku jira wax la yiraahdo godob reebku waxa weeyaan duunyada aynu haysana waxa ugu qaalisan geela lilla dilay oo qiimo leh wax looga gamaabaa la yiri in 100 geela laga bixiyo 100 geela hadii looga gami waaye ninkii qiimaha lahaa ee la dilay wax looga gamaa waa gabar baa la yiri godob reeb oo loo guuriyo reerkii ninku ka dhintay geela way ka qiimo badanta gabadh labadii reero geela 100 geela Soomaalidu geela halka ka joogtay aad ogeydeen ee geel diiday inay u kala qaataan gabdho la isku daray ku heshiiyaan gabadhu qiimahaas ay leedahay waa koow gabadhu ergey noqotaa ergo oo maxay ergo u noqotaa laba beelood ba istagaala markay istagaalaan colaadoodu waxay gaartaa xitaa inay rag isu diri waayaan si nabadii loo keeno maxay qofka kale macawaayeelka waa la dilayaa meel xun bay tagaysaa arintu markay halka arintu marayso dumarka ayaa erga loo diraa lama dilo iyagu bal qiimaha meeshay maray gabadha qiimaha leedahay tay halkii bay tagtaa fariintii loo dhiibay beeshan u dhiibtay beesh kale u geysaa halkii baa lagu wada hadlaayo nabadii bay u dab qaadaa labadii dhinac gabadhu waa ergo xilliga xun ee adag ee isma bixisada ayay gabadhu erga tahay waa labo qof abaal weyn kugu galay oo adoo lagu dili raba ku bixiyay xoolahaaga la dhici raba badbaadiyay lagu ayadoo dhibaato kale kugu dhici lahayd ka badbaadiyay oo abaal weyn oo waxaad ugu guddo aadan heli karin aad u qabto gabar baa la dhaafiyaa oo la siiyaa ninkaas bal ee gabadhu meeshay kolba furanayso ee adduunyada kale kama jirto gabar sidaas kama jirto gabadhaasaan qofka abaalka weyn aad u hayseed weyga aad waxaad ugu guddo heli karin gabar baa la siiyaa waay maganta gabar baa magan gelisa dad markay arin dhacdo dhibaato dhacdo gabar baa laga magan galaa oo waxay Soomaalidu tiraahaa neef irmaanoy gabar qabsatay iyo nimay ku hagoogatayba gabadha laga ma qaado labadaaba colku kama qaado xoolaa la dhacay gabadhi neef irmaan bay qabsatay oo waxay tiri noo daay anaga wada qaadin xoolihii colkaasi kasto uu yahay gabadha waa in loo daayaa neefka nin bay isku hagoogtay gabadhii la dili rabo ciday doontaa ka soo jeeda gabadha ragga waa kii uga taga ninka ay ku fadhido lagama dilo lagama wasbixiyo aniga baa og hadda xamar magaalada wiiliya gabar jooga 3 xabadood isagoo lagu dhuftay bay iyadoo suuq u socotay iyo hab ku tiri sidii digaagad ukun ku fariisatay amal waa dhowr 99 dagaaladii xamar ka socday maray garanay wiilka ha u celinay tiraadu inta u dhintana nasiibkii hadduu ka kacana nasiibkii iyo xabad kale ha u celin hadda macajal baabkeedii bay ku fariisatay ninkii waa ganacsadii uu jooga hadda ayaguna waa uga tageen yani qiimaha ay siinayaan eeg laba reerood oo kala fogaaday oo aan isbixinaynin oo aan is aqoonin oo kala outfog wax isu keeno walaaleeyo isku xiro guur iyo gabar baa jiraan way isu keentaa shisheeyay sokeeya ka dhigtaa gabadh